waxa aan ku dhex jirnana waa biyo hadda gu'na ma aha deerna ma aha waxay tahayna waa wareersan xaafadina saana ay wada xiran tahay oo maartay ay loo qaxay marka afkaaba juqda gab waxaan ku sheegnaa ilaa hadda aan aqaan laana in ka yar 2 bilood ayaa ka soo wareegatay fatahaadii weyneed Webiga Shabeelle oo ka geysay sanadkan magaalada Xarumeed ee gobolka Hiiraan Beledweyne bulshada ku nool Beledweyne waan ka soo kuman saameyntii fatahaadaasi guriyada u geysatay sidoo kalena aan la gaarin xilli roobaadkii ayuu mar kale saacadii ugu dambeeyay Webiga Shabeelle oo bilaabay inuu ku fataho xaafadaha qaar ee magaalada gaar ahaan xaafadaha ka dhow goobaha uu ka fataho Webiga Shabeelle xilliyada fatahaadu uu sameeyo Webiga Shabeelle dhexmara magaalada Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey way hoyliyaan gudoomiyaha degmada Beledweyne iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka ayaa kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha uu ku fatahay Webiga Shabeelle gaar ahaan xaafadda Laanta Bacada oo ka tirsan xaafadda Hulwadaag ee magaalada Beledweyne oo ku fatahay kiliga Waraabalo oo ka mid ah dooxyada ugu waaweyn ee Webiga Shabeelle oo ka fataho xilliyada fatahaadu uu sameeyo Webiga Shabeelle ilaa 500 oo qoys ayaa biyo uga barakacay guryaha ay ka deganayeen xaafadaasi sida ay sheegeen gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhiciso Udhubow iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Korneel Isaaq Cali Cabdulle oo ka hadlay kormeerkaas iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen xaafadaha ay booqdeen sidoo kalena ka hadlay waxyaabaha sababay in xilligan fatahaadu uu sameeyo Webiga Shabeelle ayadoo la gaarin xilli roobaadkii isla markaana aysan jirin wax roob ah oo ka daay gobolka Hiiraan waxaana ku baaqeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro qoysaska ka barakacay xaafadaasi meesha hadda aan joogno waa xaafadda hadda isha kiligii Waraabala hadda aan bartiis u jeednaa waxa aan ku dhex jirnana waa biyo hadda gu'na ma aha deerna ma aha waxay tahayna waa wareersan xaafadina saana ay wada xiran tahay oo maartay ay loo qaxay marka afkaaba juqda gab waxaan ku sheegnaa ilaa hadda aan aqaan laana marka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waad u jeediin xaafadan ilaa maaragtay ilaa 500 guri camal ah dadkii ay ka barakaceen ilaa labada cawaana la soo wacay marka insha Allah waa marqaati doonto waa u jeedii biyo xaafad saana ay u jiraan hadda jilaal lama aha waa xilli jilaal aan joognaa dadkii xolihii banaanka dad u baxday jilaal waaya dhulku waa cadiyay haddana u jeetay wax biyo aan dhex fadhin marka insha Allah Ilaahay hadii Ilaahayda gudoomiye biyahan hadda sharaxaad ka wanaga siido in magaalada ay ku soo bataan qaybo kamid wallahi hadda sida hadda aan qiyaasaa dhinacan Itoobiya maartay roob badan ka da'ayna awalba anaga dhinaca Itoobiya maartay biyaha naga la sii jiray haddana roob maasku anaga hadda wax lagu daayay ma laakiin biyahaas oo badan dhinacaas Itoobiya insha Allah bidna imaanka imaanaha Ilaahay waxaan leenahay hanaga yaray biyaha aadan maartay u dhibsanay waxa weey waxaan tagnay aniga iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka xaafadaha waa soo aragnay waxaan aragnay xaafado laga baxay oo biyaha ay gaareen waa nasiib darro iyadoo hadda aan laga joogin 2 bilood wax ka badan xaafadihii biyo baxadii hore 2 bilood ka hor laga baxay oo dadka hadda ay ku soo noqdeen haddana inay mar labaad ka sii qaxayaan oo biyo kale ay yimaadeen waa nimco Ilaahay oo keenay sida aan wararka ku helaynana waxaan xog ku haynaa in ay soo socdaan biyo kale oo dhanka Itoobiya Webiga Shabeelle oo ka soo wado walow aysan hadda roobada aynin oo aysan noqon doonin si qaasayno fatahaadii hore kale haddana waxay dhibaato u geysanayaan dadka beeralayda ah iyo magaalada xaafado ka mid ah sida hadda xaafadan aan joogno gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kormeerkaas iyo xaafadaha uu ku fatahay Webiga Shabeelle oo kormeeray waxaana uu baaq u diray hay'adaha samafalka ee howlgala gobolka Hiiraan asigoo sheegay in maamul ahaan intii karaankooda ay gacan ay ka geysan doonaan caawinta qoysaska ka barakacay xaafadaasi waa kan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey oo ka hadlay arrimahaas iyo waliba waxyaabaha sababay in xilligan fatahaadu uu sameeyo Webiga Shabeelle waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maamulka gobolka iyo degmada maanta waxaan soo gaarnay xaafadan Hulwadaag gaar ahaan xaafadda Heegan kiligan hadda soo fatahay waa kiligii Waraabalo xaafadan hadda aan joognana waxa la yiraahdaa Bajaab waa xaafadda Geetimirko dabcan dadkan hadda muddo biibaxadii hore waxay ka joogaan bil waxa ka yaray guryahan ku soo laabteen haddana waa arkaysiinoo biyo kale oo maaragtay hadda waqti roobaad maba joogno laakiin waxa waaye waa xagayga aan dhihi karnaa oo maaragtay dhinaca Itoobiya ka daay wax walba Ilaahay keeno waxa waaye cidaan u caroonayna ma laha laakiin maamulka gobolkan qaybtiin oo aad waan ka geysan doonaa haduu Ilaahay yarahay degmada dhammaan ku iskaashanayna macal shacabka Soomaaliyeed kama daalaan inay mar walba ay garab ay isiyaan Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Somali News Beledweyne